السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوين عيدن ودينا كومنتيغا إنو سو قرتين موقع هوري وهودا سو قالين حلي مركزي هوريسين waxa ay ku sheegtay inay iyadu sigaysato oo xubinkeeda taranka gacanta ay mariso laakiin waligeeda aanay wax biyaahi ka iman marka waxay tiri gacantayda ayuun baan ku raaxaystaa oo xubinkayga taranka aan mariya laakiin waligay ma arag bay tiri wax biyaaha oo iga yimin iyo wax xataa qoyaana oo marka xubinkayga ka imanaya markaana waxay tiri gacantuun baan ka helaabay tiri raaxo laakiin maan isku arag bay tiri wax qoyaana iyo wax biyaa midna ma arag arintaasi ma siigay noqonaysaa bay tiri mise waa gacantaas uu xubinka taranka aan ku raaxaysanayo oo taasi siiga ma ahan aad bay u mahadsan tahay haweeneydani qaabkan waa qaab siigada kamida waana qaabka ugu khatarta badan ayuu kamid yahay haweenku iyo raggu dhinaca siigada way ku kala duwan yihiin haweeneydu inay biyo isku aragta qasab maaha marka ay siigaysato laakiin ninku isagu biyuhu way ka yimaadaan oo haduu siigaysto waa qasab biyuhu inay yimaadaan haweeneydu markaas iyadoo siigaysatay ayaa mararka qaar waxa dhici karta inaanay biyihii dabada uga soo bixin laakiin dareenkiinu ka jab mar haddii ay sidaa u kala bedelan yihiin qaabkan aad imika samaynaysaa waa qaabka ugu khatarta badan ee ugu halista badan sababta uu qaabkan yahay qaabka ugu halista badanna waxa weeyaan haweeneydii sida imika iyadaba aynu ka arkayno waxa iska dhigaysaa sidii qof aan siigaysan bay isku arkaysaa shayguna marka aad u arkaysa inaan wax khatar lahayn iyo marka aad khatartiisa arkaysa laakiin si bareera oo intentionally oo deliberately aad u samaynayso way kala bedelan tahay mar shaygii waad arkaysaa inuu halis iyo khatar kugu yahay oo laakiin adiga u bareeraya tusaale ahaan oo kale imika sigaarka iyo balwadaha khatarta leh qofkii uu og yahay oo leafletka ay ku qoran tahay dhibaatada caafimaad ee uu gaarsiinaya laakiin isaga u bareeraya oo bareerto soo weeyaan laakiin waaninka iyo digniinaha caafimaad ee hariya habeen dhakhaatiirtu ay ka soo dirayso uu og yahay dhibaatadiisana uu la socdaa tani laakiin sababta ay khatarteedu ay u yaraatay waxa weeyaan waa silent psychotic wa haweeneydii oo la qabatintay siigadii oo samaynaysa oo laakiin ay la aamusan tahay oo ay isku arkayso inaanay siigaysanay dhammaan dhibaatooyinkii caafimaad darro iyo khatartii caafimaad darro ee ka imanaysay siigadana way ku dhacaysaa marka waxa kugula talin lahaa qaabka noocaasa waa qaabka ugu halista badan mar haddii gacantaada xubinka taranka aad daabsiiso oo dareenkaagu soo kaco oo dareenkaaga markaad gacanta xubinkaaga taranka aad marmariso way ka jabiso waa siigadii oo toosan ee sida ugu dhaqsaha badan u jooji arintaas dhibaatooyin caafimaad oo khatar ah ka dhashay waliba haweenku marka ay arintaas sameynayaan waxa laga qoraa tibisaad u badan ama qodobo aad u badan baa laga qoraa dhibaatooyinka caafimaad ee haweenku ay ka dhaxlaan siigada waxa ka haweeneydu inay maskax ahaan ay fadhi weydo oo inta badan dhinaca maskaxdeedu caadi ma noqoto hadii haweeneydu siigaysato dhinaca kale waxa iyadana ku dhaca haweeneyda waxa ku yimaada cudur la yiraahdo anxiety oo inta badan murugay la noolaataa oo warwar bay la noolaataa dhibaatooyinka kale ee haweenku marka ay siigaystaan iyagana ku dhaca waxa kamida inay haweeneydu ay isnacdo oo isnadiifin weydo oo jir ahaan ay qurunto oo xataa timaha ay feeran weydo marka dabana sida ay nolosha kaga daadagto oo sida nolosha ay kaga dhacdo marka ishiifto ee ay isceebaysato way isnacaysaa waxa kale iyaduna dhacda oo waliba xagga haweenka dadka haweenka siigaysta iyagana ku timaada inay haweeneydaasi ay noqoto haweeney lycosa ama haweeney fatiga dulyaan aan shaqaysan karin aan shaqadii guriga iyo tii nafteeda iyo tii nolosheeda intaba aan samayn karin marka sida ugu dhaqsaha badan
فعل كافوش وجوجي كدوبتكين قوان أدقنا كقاعدون هرنا وقصعوا وقوريا مستقبل راستان كلها هاي انت أصلا كسو ورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.